warbaahinta waxa ugu faac weyn wargeysyada iyagoo ahaa isha kaliya ee laga xigan jiray xogaha iyo waxa caalamka ku shaacsan. Soomaaliya waxay qayb ka ahayd wadamada saameynta xoogan oo ku lahaa wargeysku ayna akhrisan jireen Soomaali badan xilligii xorriyadda iyo waqtiyadii wadanku uu galay burburka. Inta aysan Soomaaliya xorriyadda qaadan waxaa soo bixi jiray wargeysyo wax ku qora afafka qalaad. Si gaar ahna dadka wax yaqaan ayaa loola imaan jiray si kuwa kale ay ugu sharaxaan waxa wargeysku uu qoray. taariikhda ay soo mareen wargeysyada Soomaaliyeed waa mid la xasuusiyo dib u gacasho waayo qiimo ay ku dhaxlahaayeen bulshada wax akhrisa ma ahan mid la soo koobi karo marka laga eego soo jireenka sooyaalka wargeysyada. January 1960 ilaa 1970 dalka waxa ka soo bixi jiray afar wargeys oo shisheeye ay leeyihiin laba Talyaani iyo Ingiriis oo ku soo bixi jiray mid waxaa la jiray Corriere della Soomaaliya midna waxaa la dhihi jiray Somali News waxaa jiray La Tarbuna iyo mid Somali News afarta wargeys ayaa wadanka soo bixi jirtay dadka marka luqada Ingiriiska ma sanaqaan sida badan Talyaaniga subax markuu soo baxo dad baa soo gadaayo waxay u keenayaan nin akhri yaqaan ayuu 20 ay ku wareegsanayaan markaas uu akhrina uu leeyahay oji Repubblica Presidente di Repubblica Aadan Cabdulla arriba oo gudiis xamaro yimaaday ma tan u akhrinaya waa u macneynaya markay dhageystaan ay ka helaan informationki isagu wuxuu u qaadi jiray mataqaana dakhli soo galay ama muqsaayad journalka waa laabanaya intuu ka journalka marka subaxda ina rag baa soo gado rag baa u akhriyo marka muddo 9 sano ah dalka waxa ka jiray jaraa'id shisheeye ah halkaas ayaa dadku afka xiraa Talyaani iyo Ingiriis ayaa soo bixi jiray nin abukaat Ismaaciil Jumcaale wuxuu lahaa La Tarbuna oo dhinacan koonfurta ah nin reer waqooyi dhajira dhuxulna wuxuu lahaa jiray Somali News dowladdan waxay lahayd Corriere della Soomaaliya iyo waxay lahayd Somali News lahayd kaas wuxuu ahaa The People marka afarta wargeys ayaa dalka haysan jirtay idaacad waxay idaacad reer Hargeysa iyo reer Muqdisho wax kale oo jiro ma aysan jirin wargeysaha dalka soo bixi jiray iibinta wargeysyada iyo gaarsiinta goobaha xadidan ee ku caan baxayn lagu akhristo waxay tahay shaqo u baahan khibrad waxaana jira dad khibrad u leh in ka badan 30 sanadood wareejinta wargeysyada waxayna ahayd fursad aan ku xog wareystay dadkaas iyagoo tabashada ay qabaan haatan ay ugu weyn tahay tiknoolajiyada oo yareysay dadka iibsada wargeyska waxayna qaarkood ii sheegeen in qatara badan ay kala kulmeen wareejinta wargeysyada maalinlaha ah ee la daawaco. Wallahi taariikh waxa uu dhacday xilla anigoo rabo inaan dadka waqooyi journal badan inaan ka soo qaado aan rabo ayaa waxa aan ka soo kacay xilligii adinka koowaad anigoo bixi jiray xilligii salaada subax markii salaada subax laga baro hurdo anigoo ku soo gaaroway ayaa waxa ay arkay 9 saac habeenimo anigoo taagan isku siinay oo markaas magaalada ay kala qaybsadeen ilaahay amdiga dhalinyaro markaas ay meesha jooga qaar kamid ah ay aqoonsadeen ayaa waxaan u sheegay macnaha in aan hurdo ku soo gaaroway marka barnaamijkaasna aan u socday haddana iska laaban doono subaxdii xiyo aan soo bixi doono magaalada dhalinyarada horumar ay gaadheen moobilo waxaa la wataa oo la interneeda oo qof walba waa caalamka walba uu kula socon karo markaad joorka u geysataa waxaa lagu dhahaa mobilka ayaa ka arkay saasay tahay wali waa ku arkaysanaa wali shaqadeena waa isku wadnaa alxamdulillah waa fiicanahay waan ku qarsoonaa shaqadeena magaalada Muqdisho waxay aad jirtay magaalada wargeysyada dadka wargeysyada ka shaqeeya waxa ay sheegeen xilliyada ugu fiicneed ee wargeysyada la soo saaro inay ahayd 91 ilaa 2002 xilligaas waxa la soo saari jiray cadad gaariya 10,000 oo cadad waxayna ahayd mid dhamaado oo magaalada gabi ahaanba loo qaybiyo balse xilligan la joogo xarumo badan oo warbaahin ayaa daabaco wargeysyada waxayna daabacaan wax ka yar ku wargeys taasna waxa saameyn u leh tiknoolajiyada oo aad iyo aad u korortay tiknoolajiyada caalamku tiigsaday Soomaaliya waxay uga dhigan tahay mid ka yareysay akhriska wargeysyada waxaana cadad aan badnayn wali ay ku fara adeegayaan akhrinta wargeyska iyadoo ay ugu wacan tahay wararka wargeysku bari daabici lahaa oo maantaba la sii og yahay waana mid ay qabaan madaxda wargeysyada Soomaaliya ka soo baxay inay tahay caqabadaha ugu weyn ee haysta runtii waxaan soo wadnay jaraa'idada muddo dhowr sano oo saxaafadda Soomaaliya heerku weyn meesha ka bilaabatay Britain Media
waxaan nasiib u yeelanay inaan ka soo shaqeyno iyadoo jirin TV saasa website idaacad in muddo aan soo wadnay waayii u dambeeyay waxaa waaye adduunka oo dhan wuxuu u gudbay teknolojiyada casri ah saameyn weyn ugu yeelatay markii la wargeys ahaan inta caddaan daabaci jirnay shaqadeena si u badneed u adkeed iyo hadda sidii ay noqotay qudhayna xataa waxaa u moodaa teknolojiyada inaan ka daba guurnay oo website aan u samaynay oo page social aan u samaynay oo dadkii isla markaas dhacday inaan berri wax soo gaarsiinayna hadda aan sii gaarsiino marka jaraa'idan aan ujeedid waxaa shaqada la geli jiray habeenkii oo dhan ayaa lagu dhafri jiray 10,000 cadad ayaa laga sameyn jiray hadda waa ujeedaa 500 800 oo cadad xilliga imaanayaan shaqaalihii intay leeyihiin intay ka jireen saameyn wuu jiraa oo dhanka dhinaca teknolojiyada ah haddana ma ahan wax aan la yaabayno oo adduunka oo dhan oo u baahano teknolojiyadaas sii gudbaayo dhibka hadda muhiimadda ugu weyn waxaa waaye saxaafadda Soomaaliya inay ka bilaabatay in la ogaado inay Britain Media yahay welina aan wadno hawshii aan ku dhaw adeegayno ayna noo socoto farqiya u dhacay wax isku dhowna ma ahan wargeyska maalinta ugu yartaa 10 wargeys oo kala nooc ayaa soo bixi jirta magaalada oo ka ugu yartaa 500,000 xabad samee jirta hadda wax maalinlaha waxa laga arkaa labadan xogdoon Muqdisho Times iyo Sports Hilal Sports cadadkoodana hadda waa ila joogto markaan shaqeynay intay leekaayeen marka ma aha wax la soo koobi karo hadda tan difference weyn oo dhacay gaaba jiro hadda waa soo caweysiinay arabna ma ahana waa dadaalan ku jirnaa inaan hawsha sii wadno akhriska wargeyska koonfurta Soomaaliya waxa uu ka noqday mid ay ka xoog barisay teknolojiyada caalamka ku sii baahaysa waana mid akhrinta wargeysyada oo xiiso badan lahaa hoos u ridaysa baahida loo qabi karo akhrin wargeys halka wadamada qaar akhrinta wargeysyada ay uga dhigan tahay howl maalmeed aan laga fursan karin. Axmed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.